أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. سورة الإسراء suuradan magacaabaa la siiyey waana suurad shanigeedu aada u weyn yahay. cadadka aayaadkeeda soo maaha waa 120 ama 110 aan dhehe. waa haddaanu qaban cadda-aayihii reer madiina, haddaanu qaban cadda-aayihii reer maka, kii kale reer shaam, kii kale reer basra keliyata waxaa jira cadil-aayaha reer kuufa ayaa waxay leeyihiin waa 111 aayadood. wax farqiya oo udhexeeyna markaa ma laha. jala wacalaa marka wuxuu leeyahy fi lqur'aani alkariim subxaana waxaa hufnaaday oo xumi ka dheer alladii macbuud asraa dheelmiyey bicabdihi addoonkiisa dheelmiyey laylan habeen dheelmiyey min almasjid alxaraami masjid alxaraam ka dheelmiyey ila almasjid alaqsaa ilaa laga gaaro masjid alaqsaana u dheelmiyey. alladii masjid alaqsaagiyo baaraknaa aanu barakaynay xawlahu hareerihiisa aanu barakaynay. waa meel ma aragtay ilaahay subxaana wa tacaala webiyada dureysanaya iyo miraha ka baxayaa la tilmaamaya. ilaahay marka wuxuu leeyahay nebi maxamed ayaanu dheelminay, waxaanu ka dheelminay min almasjid alxaraami oo maka ah ila almasjid alaqsa oo bayt almaqdes ah ayaanu u dheelminay oo ah goob iyadu ilaahay subxaana wa tacaala oo u barakeeyey. linuriyahu min aayaatina linuriyahu halkaa marka waxay ku tacalluqdaa sababta loo dheelmiyey ee asraynaahu aw asraahu rabbuhu ilaahay subxaana wa tacaala baa dheelmiyey ama asraynaahu aw asraynaa bihi waanu dheelminay linuriyahu inaanu tusino min aayaatina aayaadkeena ay min cajaa'ibi qudratina awoodeenna cajaa'ibteeda inaanu tusino. inahu ilaahay huwa ilaahay assamiicu allihii maqlid badan albasiiru alkitaab badan. ujeedadu waa maxay? awoodda ilahay in la muujiyo. haddaba marka waxaa jira israa iyo micraaj baa jira. isruhu isagu dhulku ka dhacay, yani nabiga sal lla alay waslam makaa laga kaxeeyey bayt almaqdis baa la geeyey. micraajkuna wuxuu ka dhacay dhulka iyo cirka inta udhaxaysa, waa la kaxeeyey markaas waxaa la geeyey xaggaa iyo samadaa la geeyey. marka alisraa haddii la yidhaahdo waa min maka ilaa bayt almaqdis. almicraaj marka la yidhaahdana waa min bayt almaqdis ilaa samada 7aad ilaahi subxaana wa tacala uu ka geeyey. cajaa'ib fara baduu nabiga sal alla alay wasalam arkay oo runtii xadiidkii dheeraa iyo tafsiirkii dheeraa nagu soo maray. ilahay marka wuxuu leey waaataynaa waxaanu siinay muusa nebi muuse alkitaaba kitaabkii baanu siinay wajacalnaa waxaanu keenay kitaabkii hudan ay haadiyeen mid hanuuniyaan ugaga dhignay libanii israa'iila reer bani israa'iilna waxaanu ugaga dhignay mid markaa iyagii hanuuniya. waqulnaa lahum marka waxaanu ku niri amaba tacalulka waxaa samayn kartaa inaad aad qowl usoo qadaratid. marka waqulnaa lahum waxaanu markaa u niri anlaa tattakhiduu ay laa tattakhiduu ha yeelanina min duunii aniga sokaday awliyaaa ama wakiilan dheh
mid aad tala saarataan. marka halka kan anlaa tattakhiduu waxay culimmadu ay tilmaamaan in maquulkaa meesha yaal taqdiir u baahan yahay. waqulnaa lahum waxaanu ku niri anlaa tattakhiduu anta meesha ku jirtana ta-aduba maca alqur'aani wasila, laakin waa ziyaado macno ma wadato. wailaa hadday macno wadan lahayd macnuhu iska kaya bedeli lahaa. saa darteed waxaan leenahay waqulnaa lahum waxaanu ku niri anlaa tattakhiduu ay laa tattakhiduu ha yeelanina min duuni aniga sokaday awliyaa ama wakiilan dheh mid aad tala saarataan ha yeelanina. dabcan waan iska soo gaabinaynaa maxaa yeele tafsiirkiina soo maray awjuh fara badan iyo qiraa'aad kale ku jiray iyo tawjiihaad kale, laakiin intaa gaaban baan kaga haraynaa insha allah. dhuriyata man xamalnaa yaa dhuriyata man duul firkiisiyow xamalnaa aanu xambaarnay maca nuuxin nuux la jirkiisa fi safiinati xaalay ahaadeen aanu xambaarnay ilaahay sokadii wax wakiila ha yeelanina. inahu ilaahay ama inahu dheh nuux kaana wuxuu ahaa cabdan addoon buu ahaa, addoonkaasoo shakuuran mahadnaq badan. marka dhuriya iyadana waxay tahay mowdic munaada ah, yani ilaahay marka uu la hadlay ayuu wuxuu ku yihi laa tattakhiduu aw an laa tattakhiduu min duuni wakiila dhuriyata man xamalnaa maca nuux. firkii nuux kasoo harayow, yani kasoo farcamayow, wixii intii nebi nuux kasoo farcantayow, war ilaahay sokadii wakiil ha yeelanina. hadalka marka saasuu marka isugu xiran yahay. marka jumlada marka ay saalaysa waxa wa aataynaa muusa alkitaaba wajcalnaa hudan libani israiil, halkaa ku istaag marka. waqulnaa lahu waxaanu niri laa tattakhiduu ay anlaa tattakhiduu ay laa tattakhiduu ha yeelanina min duuni aniga sokaday wakiilan mid aad tala saarataan dhuriyata man yaa dhuriyata man duul duriyadiisu xamalnaa maca nuuxin nuux aanu la xambaaray fi safiinati doonida. yani bimacnaa ilahay markuu idin badbaadinay tawxiid baa laydinku badbaadiyey, hadda maaha downa idiinma aha ilaahay sokadii inaad yeelataan midaad umuurta u dhiibataan. ilaahay tawxiid buu shalaba idinku badbaadiyey. marka doontii nebi nuux dadkii la saaray iyo intii kasoo farcantaba waxay ahaayeen dhal ama fir ka yimid tawxiidkaa ka yimid bay ahaayeen. ulaaika aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiin ulaaika aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina min duriyati aadam وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وتينو إيمان دونت. وقضينا وحانو حكمني أما وحيوني له إلى بني إسرائيل رأي بني إسرائيل وحان وحيوني في الكتاب كتاب توراة كهوحان أغشجن وقضيت kitaabkooda ku qoran loo sheegay latufsiduna waad fasahaadin doontaan fi lardi ardadii shaamahayd macaasi baad la iman doontaan maratayni 2 jeer, wala taclunna waad kor noqon doontaan culuwan kor noqosho kabiiran ee aad iyo aad u weyn. waxaan u sheegnay waxaa dhici doonta 2 mar oo fasaad aad dhulkaas aad la iman doontaan. yani waa fasaadkii ay la imanayeen amaba ha noqoto wixii ay ilaahay subxaana wa tacaala uu ka nahiyay ha noqoto oo taariikh ahaanna iyadoo faahfaahsanna soo martay. saasaa dhici doonta 2 jeer baad fasaad la iman doontaan. ilahay marka wuxuu lehy faidaa jaaa wacdu uulaahumaa labadaa jeer ay faidaa jaaa wacdu uulaa maratay lfasaadi wey. labada jeer faidaa jaaa hadduu yimaado wacdu uulaahumaa labadaa jeer ee fasaadka aad la iman doontaan mid kamid a yabooheeda hadduu yimaado waqtigeeda haddii la gaaro fasaad baad la iman doontaan. laakiin marka ugu horey fasaadka aad la imaataan bacahnaa calaykum waxaanu idinku soo diraynaa cibaadan addoommadaasoo lana inaga noo ahaado, addoommadaasoo uli ba'sin xarbad u saaxiiba, xarbadaasoo shadiidin daran fajaasuu waxay dhex meeraysan doonaan ama dhex gooshi doonaan dhex jibaaxi doonaan khilaala diyaari guryaha dhexdooda. wa kaana wacdan arrinkaana wuxuu ahaadaa yabooh rabbi uu yaboohay oo mafcuulan la sameynayo. halkaa dabcan jaasa yajuusu waa marka qofka uu saa u dhex galo. badanaana marka ummad la weeraro ama dad lasoo weeraro oo cadow uu qabsado ama askaru ay soo gasho ama ciidan uu soo galo waad garan kartaa waxa meesha ka dhaca. yani marka dadka dibadda jooga marka la laayo baa waxaa loosii dhaadhacay inta guryaha ku jirtay oo dumarkii iyo ciyaalkii iyo askarta isqarisay iyo kuwa baxsatay waa la galaa musqusha wax kasta lagu tuuraa jikada maaragtay xabad lagu furay wax kasta lagu sameynaya. jaasu khilaal diyaar waa markii laga qaalib noqdo oo wadada lagu soo jebiyo oo shaaric lagaga adkaado oo dhufaysyada lagaa soo saaro oo meel walbaba
oo diyaaradaha lagaa soo ridaa gurigaaga haddana lasoo gelay waadna aragteen iyadoo marka life adduunyada waad ku aragteen ilahay marka wuxuu leeyahy faja'suu khilaala diyaari adoon markay yimaadaan xaaladdaa markay dhacda addoommadaasaan idinku soo celin doona waxayna marka culimmadu ay tilmaamaan fasaadkii ugu horreeyay ay ku dhaqaaqeen baa wuxuu ahaa waa tii ay dileen nebi zakariya ay dileen kadib waa ta ilaahay subxaana wa tacala uu kusoo salliday jaaluud oo ciidankiisii wata waa ta iyagoo dhan inta la laayay awlaadoodii la taxaabtay oo markii ay takhriibka koowaad uu dhaco wey ilahay marka wuxuu yidhi 2 jeer baa fasaad geli doontaan marada ugu horeysa fasaadku idinka dhaco markiiba darsi baa ladiin laqini doonaa uma radadnaa lakum kadibna waxaanu idiin soo celinay bay qur-aanku ka dhiga marka ay sawfa naruddu lakum uma radadnaa lakum waxaanu idiin soo celinaynaa alkarata laabashadii calayhim iyagi oo ah dowladnimadii iyo awooddiina waanu idiin soo celinaynaa marka koowaad marka laydinka adkaado baa dib danba haddana halabada idiin soo doona waa goorma waa markii 100 sano ay kasoo wareegtay hal qarni markii jaaluud la dilay kadib baa ilaahay subxana wa tacala reer bani israiil awooddii dib ugu soo celiyay waamdadanaakum waxaanu idiin kordhinaynaa biamwaalin xoolo iyo wabaniina awlaad wajacalnaakum waxaanu idinka yeelaynaa akhara nafiiran kuwa cashiiradoodu ay badan tahay dad aada u tiro badan population density lehna waan idinka dhigaynaa bu ilahi subxana wa tacala leh halka marka waxaa la yidhi kow qalad baad geli doontaan qaladkii darsi baa laydin laqini doonaa inaad nebi zakariya markaad dishaan baa jaaloodu idinku salli doonaa markii baaba laydinka dhigo oo dowladnimadiina ay tagto oo dhulka laydin mariyo oo waxba aydaan ahayn ayaa ilahay subxana wa tacala haddana dibdib wuxuu idinkugu soo celinaya maamulkii iyo dowladnimadii iyo awooddii waana goormo waa 100 sano markii darsigaa loo laqinay kadib wey waa markii jaaluud la dilay jaaluudkii ka adkaada shalay ilahay marka wuxuu leeyahay waxaa idiin weheliya haddana dad xoolo leh oo maaragtay awlaad leh oo dadka ka tira badan markay population noqotan ilahay idinka dhigaya ilahay marka wuxuu leeyahy in axsantum haddaad wanaag la timaadaan biaacati ama qulnaa lahu waxaan ku niri in axsantum haddaad wanaag la timaadaan axsantum lianfusikum nafafyaashiina uunbaad wanaagga u samayseen naftiina uunbaad wanaaggii u qabateen wain asatum haddaase xumi la timaadaan falaha falianfusikum naftiina unbaad maaragtay idinka unbaa marka lafihiina unbaa xumida aad ula timaadeen wey faidaa jaa marka hadduu yimaado wacdu laakhirati tii dambaysay boohedi 2 mar bay fasaad la imaanayaan sooma maradii koowaad meel baanu isla dhignay haddii faidaa jaa hadduu yimaado wacdu laakhirati ay wacdu lmarati alaakhirati fasaadkii kale waqtigiisii markii la gaarana bacahnaahum dibdan baan usoo saaraynaa dadkii shalay haddana mar kale ka adkaateen kow idinka adkaa haddana ka adkaateen baanu dibdanba usoo saaraynaa leesh liyasuu-uu inay wujuuhakum wejiyadiina ay xumeeyaan oo idin murjiyaan qofka dabcan markay murugtu ay ka muuqato wejiga meesha ugu horeysa qofka farxadiisa iyo murugtiisa iyo waxay ka muuqataa wejigaa laga aqristaa waa pageka qofka bini aadamka wey waa maxay maxaa yeele waxaa lagugu hordilayaa awlaadaadii waxaa lagugu taxaabaya dadkaad jeclayd intaasaa hortiina lagu samayn doonaa ilahay marka wuxuu leeyahay waliyadkhuluu inay galaan almasjida masjidka inay galaan kamaa dakhaluuhu say u galeen awala maratii ugu horreysay dukhuulka kan maaha nin intuu soo gala ku tukanaya maaha dukhuul bilkharaab way soo galeen iyagoo masaajidka ku tumanaya iyo waliyutabiruu inay halaagaan maa calow waxay ka kor noqdaan tadbiiran halaag inay halaagaan marada labaadna waxay ahayd markay dileen nebi yaxye ay dileen ilaahay subxaana wa tacala wuxuu kusoo diray bukhtu nasr markaas wuxuu ka dilay intaasoo kumanaan buu ka dilay oo ciyaalkoodii baa la taxaabtay maxaa kadibna bayt almaqdes buu isna haddana uu burburiyey marka 2 jeer baa la sheegay haddaad yahuud tihiin kitaabkiina waxaa ku qoran baa layidhi 2 mar inaad xumi la iman doontaan 2 marna ilaahay subxaana wa tacaala faraha idinka kawin doono marka koowaad zakariya disheeno ilaahay gadaal wuxuu ka soo saaray jaaluud waati wax idinku dhacwa laydin ogaa fatra waxaa idin soo martay 100 sano kadib aad raaxaysataan adduun oo dhan laydin siiyey fasaadkii baa dib ugu soo laabateen soo maha bukhti nasr baa lasoo saaray tii mid lamido haddana idinku dhiga haddaba labada fasaad inta udhexaysay dardaaran rabbaani baa jira oo leh in axsantum lianfusikum wain asatum falaha faida jaa wacdu laakhira haddaad wanaag la timaadaanna idinkaa wanaagga qabsaday haddaad xumi la timaadaanna xumid idinkaa qabsaday runtii darsigan darsi baa inooga dhex bixi kara iyadoo meeshii aan ugu talagalin inaan wax ku faahfaahina aanay ahayn haddana ummad any nation midkuu doonaba ha noqdo
marxalad baa ku imanaysa nationkaasu ama ummadaasu ay baraaraan noocan ma ilaahay subxana wa taala prosperity uu siinayo oo ay raynrayn iyo wacnaan iyo wanaag iyo horumar ay ku nooshahay laakiin markii fasaad u yimaado ilaahay subxaana wa tacaala fasaadkaas maaha cadaab inuu samada kasoo degay keliya ummadda dhulka lala gooyo waxaa laga yaaba inay dadku dhahaan maxaa ummadii hore qaaruun iyo dhulkaa lala jara iyo qolyaha dhagxaan baa maaragtay samada kaga timid iyo dabeylaa lagu qarqay ilaahay subxaana wa tacaala habab kale buu ilaahay subxaana wa tacala ummadda u cadaab waxaa ka mid a in inagoo qoryo laysuu kaaya dhiibo waa nooc cadaabka ka mida in dowladnimadeena lasoo sari waayo waa nooc cadaabka ka mida in naysanada adduunka dhan aan ugu liidan waa nooc cadaabka ka mida in inagoo dhan wamazaqnaahum kula mumazaq fi suurati saba waanu kala geenay mid walba meel baan ka tuurnay mid walba wadan iyo qaarad ku nool nooc cadaabka ka mida wey inaad heybad yeelan weydaay waa nooc cadaab ka mida wey in dad yani waxaasoo dhan waxay ka mid yihiin cadaab ilan cadaab hadda aanu sugayno marba nooc wey qolana dabaylaa lagu qarqiya ilaahay marka iyaga dhan saa ugu baabi'iya kuwana biyaa lagu qarqiya kuwana dhagxaan baa samada kaga soo hoobta laakiin inaga nooca laynagu halaagay qayb ka mida wey laakiin ilahay wuxuu leey in axsantum lianfusikum waxaan in laga soo kabanayna qur-aanka waa laga fahmaya qofki inuu kasoo kici karo oo dhibtii shalay ku dhacday inuu maanta ka bixi karo oo marxalad cusub uu geli karo waxay ku xirantahan hadba wanaagii lala yimaado ilahay marka wuxuu leey casaa rabbukum qur-aanka casaa meeshaad ku aragtid oo magaca ilaahay uu daba yaal waa xaqiiqo bini aadamka markaa ka hadlaysana laga yaaba baad kuma fasiraysaa casaa rabbukum rabbigiin wuxuu xaqiiqo ku yahay an yarxamakum inuu idin naxariiso wain cudtum haddaad dib ugu laabataan cudna inana waa u laabanaynaa wajcalnaa jahannama waxaanu ka yeelnay lilkaafiriina kuwa gaalooba xasiiran gogol baan ugaga yeelnay haddana labadii mar laba darsi waa tii loo laqinay haddaad dib ugu laabataan falalxumadii keensatay in darsiga ogeydeen ladin laqila haddaad dib ugu laabataan sooma annagana dib baan ugu laabanayna waxaa kaloo taa weheliya waa tan tii adduunye aakharana jahannama ayaa idin sugayso gogol idin ah meel markaa idinka idin goglan wey ilahay marka wuxuu ina hada alqur'aana qur'aanka kan yahdii wuu hanuuniyaa oo dadku gacanta qabtaa lilatii ay lilkhaslati alatii xaaladii iyada ahayd hiya iyaduba aqwamu toosnaan badan qur-aanka kan waa maxay ay lilariiqati alatii hiya aqwam qur-aanka isagaa yani duruqdu way badan wadooyinku way badan yihin wado walbaba ibliis baa taagnaan kara laakiin wadada toosan qofkii raba ay qur-aankaasi ku jirtaa wayubashiru lmuminiin muminiintu wuxuu u bishaareynaya aladiina muminiintio yacmaluuna asaalixaati camalada wanaagsan samaynayay ana lahum inay leeyihiin ajran inay leeyihiin ajarkaasoo kabiiran wey wa ana aladiina kuwa laa yuminuuna aanan rumaynayn bilaakhirati tii dambaysana actadnaa lahum waxaanu u diyaarinay cadaaban baanu u diyaarinay cadaabkaasoo aliiman mu'liman la xawiya wayadcu linsaanu kii insaanka ahaa waa uu baryayaa wuu u yeeranayaa bishari shar ayuu marka ilaahay ka baryayaa wuu is inkaarayaa wuu is habaarayaa ducaa'ahu ay ka ducaa'ihi lahu sida uu ilaahay u weydiisanayo oo ugu ducaysanayo bilkhayri khayrka qofka bini aadamka marka in yar wuxuu soo gaaraan ma sabro wa oo ma sabri karo markiiba inta siduu khayrka ilaahay uga baryo sharta marka ilaah maxaa waxaan ii siisay iyo awlaadan dhibka badan maxaa ilaah ii siisay iyo ilaah maxaad ii abuurtay maxaad ii uuntay iyo waqtigan maxaa ii joojiyey iyo markii wuxuu bilaabay kalimaadkaas oo dhan xataa haddaadna raacin ilaa allah yani waa habaar wey qofka marka ilahay marka wuxuu wayadcu linsaanu insaanku wuu baryayaa bishari shar buu ilaahay ka baryayaa waa is inkaaraya ducaa'ahu ay ka ducaa'ihi sida ilaahay u weydiisanaya bilkhayri oo kale wa kaana alinsaanu insaanku wuxuu ahda cajuulan kii degdeg badan qur-aanka markii sociologiga qur-aanka bini aadamka markuu ka hadlay markii dib loogu laabto waxaa kuusoo baxay wa kaana alinsaanu cajuulan mid degdeg badan oo mahubsado ah wa kaana alinsaanu haluucan mid argagax badan oo walwal badan waxyaabahaasoo dhan qur-aan khuliqa alinsaanu min cajal qur-aanka wuxuu tilmaamay waxa uu yahay bini aadam waxa uu yahay marka degdega wuxuu keenay inuusan isnin war waxan musiibadan maanta timid kolley daqiiqada unbay socon doonaan maalmay socon doonaan sug ma sabro wey markii wuxuu le ya allah maxay sidaan ku dhacday wajacalna alleyla ilahay wuxuu yihi waxaanu ka yeelnay habeenkii iyo wanahaara maalinkii aayatayn laba aayadoo daalatayn calaa qudratina qudradeedna muujinaya famaxawnaa waxaanu tirtirnay aayat alleyli habeenkii tusmadiisa calaamadiisa waa maxay yani ilan habeenka nuurkii baa la qaaday oo dhulaan baa loogu bedelay ujeedadana waxay tahay litaskunuu fiihi saad u xasishaan ayaan saa u yeelna wey wajacalnaa waxaanu ka yeelnay markii habeenkii laga qaaday iftiinka laga qaaday aayat annahaari
maalinka calaamadiisii oo wax qoraxdii soo bixi lahayd iftiinka soo bixi lahaa mubsiratan ama mubsaran fiiha mid wax lagu arko waxaanu sidaa u yeelna marka litabtaguu inaad dalabtaan fiihi maalinkaa dhexdiisa usoo qadaro fadlan inaad dalabtaan fadli ilaahay oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaada oo kasabkii inaad shaqo u dareertaan iyo walitaclamuu inaad ogaataan cadad asiniina sanooyinka tiradooda iyo walxisaaba walitaclamu lxisaaba xisaabta inaad ogaataan wa kula shayin fasalnaahu wafasalnaa waanu kala dhigdhignay kula shayin shay walbaba fasalnaahu waanu kala dhigdhignay tafsiilan kala dhigdhigid baanu kala dhigdhignay wa ilahi subxana wa tacala shay walbaba yani habeenii maalin baa la sameeyey qul araytum in jacala allahu calaykum leyla sarmadan ila ywmi alqiyaamati man ilaahu hayru llahi aatiikum bileylin taskunuuna fiihi afalaa tubsirun bidiyaa qur-aanka markuu tilmaamay macnahaasoo kale wey yani ilaahay subxana wa tacala habeenii maalin waa la sameeyey marba mid baa baxaya habeenka markuu baxo maalinka baa soo gelaya maalinka markuu baxo habeenkii baa soo gelaya waxaa kaloo intaa loo sameeyey kow in dadku habeenna lagu nasto maalina shaqo loo dareero waxaa kaloo loo sameeyey habeenii maalin marka ay jiraan qofkii xisaabtiibuu la soconaya ilahay marka wuxu wa kula insaanin ay walzamnaa waanu laaziminay kula insaanin insaan walbaba alzamnaahu waxaanu laaziminay daa'irahu shimbirkiisa ayaan fii cunuqihi qoortiisa ama luquntiisa u gelinow oo halkaa waxaa loola jeedaa yani bimacnaa sideedaba daa'irku luqada carabiga iyadoo faahfaahsan bayna soo martay laakiin halka kan waxaa loola jeeda camalkiisa qof walba camalkiisa gacantiisa ku sitaa yani bimacnaa camalkaaga wuu kuu qoranya ma shaqi baa taho naar baad kusii socotaa mase saciid baa taho jannaad kusii socotaa qof walbaba kitaabkii uu camalkiisa ugu qornaa iyo halka ugu dambayso uu tegi doono janno iyo naar waxaanu u gelinay luquntuu ku sitaa buu qur-aanku leeyahy yani halkaa marka waxaa loola jeeda bimacnaa camal wey waan garan karnaa daa'ir meesha ay ka timid halka ay ka timid iyo faahfaahintii markana soo martaba ilaahay sidaasuu marka ka yeelay marka saad aragtay wa kulla way kor dhigan tahay wa kula shayinna way kor dhigan tahay marka halkaa waxaa samaynaysa ishtiqaalkii waxaa samaynaysaa waalzamnaa kula insaanin alzamnaa wafasalnaa kula shayin fasalna saasa isku saaraysaa qof walbaba ma aragtay camalkiisa luquntaan u gelinay wanukhriju lahu waxaan usoo saaraynaa yowma alqiyaamati taagnida maalinteeda marka la gaarana kitaaban baan usoo saaraynaa kitaabkaasoo yalqaahu uu la kulmayo kitaabkaasoo manshuuran kala baxsan wax alla wuxuu sameeyaa ugu qoran yuqaalu lahu markaasa waxaa loo lehay iqra aqri kitaabaka kitaabkaaga aqri bikafaa binafsika adaa isugu filan alyawma maanta calayka adiga dushaada xasiiban iyo muxaasiban mid wax xisaabinay kitaabkaaga lasoo kala bal aqri adaa isugu filan marka aduun isxisaab maxaa meesha ku qoran man ihtadaa ruuxii hanuunsama fainamaa yahtadi wuxuu u hanuunsamaya un linafsihi nafsadiisa waman dalla ruuxii salluma fainamaa yadil wuxuu u lumaya calayhi calaa nafsihi walaa taziru ma xambaarto waasiratun ay nafsadaasoo ay nafsu nafsadaasoo waasiratun dembi gashay wisra ukhraa ay wisra nafsin ukhraa naf kale dembigeeda ma xambaarayso wamaa kunaa mana aynaan ahaanin mucadibiina kuwii cadaabaya oo axadan ma cadaabayn xataa nabcatha ilaa aanu ka soo dirno rasuulan rasuul aanu ka soo dirno aayadahana waa aayadihiina soo maray saddex mabda baa meesha ku jiro masalat alhidaaya wdalaal oo meela iyo mas'alad in naf kale dembigeeda aan xambaarin iyo mas'alad ilaahay subxaana wa tacaala markii xujada ummadaha uu ku oga keliya in lala xisaabtamayo waidaa aradnaa haddaanu doonno an nuhlika inaanu halaagno qaryatan ahla qarya dad meel degan haddaanu rabno inaanu halaagno amarnaa waxaanu faraynaa mutra fiiha kuwoodii loo nicmeeyey baa waxaanu faraynaa biaacati war daaca oo ilaahay u hogaansama rasuul baa loo soo dira halkii ay ka hogaansami lahaayeenna marka maxaa dhici doona waa naloo sheegaya amarnaa waxaanu farnaa mutra fiiha kuwoodii loo nicmeeyey ayaan biaacati aanu farnaa fafasaquu fiiha markaasay fisqi la yimaadaan ardadii dhexdeeda faxaqa calayha waxaa ku waajiba alqowlu oo rahdi ilaahay fadamarnaaha markaasaanu burburinaa tadmiiran burburin iyadoo dhan markaa dukum daakum baanu ka dhigaynaa wakam ahlagnaa badanaa intaanu halaagnay min alquruuni ay min alumam ummada intaanu halaagna badanaa min bacdi nuux ka gadaa wakafaa birabbika rabbigaabaa ku filan bidunuubi cibaadihi addoommadiisa dunuubtooda khabiiran xogaal isaga uga filan basiiran ay arkitaan ilahay subxaana wa tacaala khabiiran inuu yahay midkii gun og basiiran u yahay midkii arkid badan inuu yahay jala wacala man kaana yuriidu alcaajila qofkii doonaya adduunyadan
ay man kaana yuriidu bicamalihi alcaajila qofka camalka ula yimid ku raadinaya adduunyo cajalnaa lahu waanu u dadejinaynaa marka alcaajila waa adduunyadii wey tii degdegaysa wey oo adduunyada laga wadaa cajalnaa lahu waanu u dadejinaynaa fiiha adduunyada maa nashaa waxaanu doona liman nuriidu cidda aan doonayno uma jacalnaa lahu markaasaan u yeelaynaa jahannamaan u yeelaynaa yaslaaha xaal uu gelayo madmuuman xaalu yahay mid la haydaarteeyey oo la dagaalay madxuuran xaalu yahay mid la fogeeyo naxariista ilahay laga fogeeyey qofkii addunya rabaa siina ilaa man kaana yuriidu alxayaata addunya waziinata nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubkhasuun ulaaئika aladiina laysa hum fi اlآkhirati ila الnaar waxabita ma sanacuu fiiha batilu ma kanuu yacmaluun waatanuu ilahi fi suurati hud wman araada alaakhirata ay waman araada ruuxii doonaya bicamalihi camalka ula yimid alaakhirata tii dambaysa ku raadinay wasacaa xaglii lahaa aakharadii sacyahaa shaqadeedana qabta u xagliyey walxaalna sidaa sameeyey huwa isagoo mu'minun muwaxid ah fa ulaa'ika duulkaas kaana sacyuhum camalkooda wuxuu ahaaday mashkuuran mid la mahadnaqo oo ilaahay subxaanah wa tacaala uu ka aqbalow kulan numidu haaulaai ilahay marka wuxuu leeyahy kulan numidu haaulaai ay kulan min alfariiqayni labada kooxoodba kooxda iyadoo adduunyo doonka ah iyo midda iyadoo aakhira doonka ah labadaba numidu waanu siinaynaa haaulaai kuwaas adduunya raadiska ah iyo haaulaai kuwa aakhira raadiska ah min caطaa'i rabbika rabbigaga siismadiisa xaggeedaan ka siinaa cid ilaahay subxaanah wa tacaala uu ka mamnuucaya ma laha cid walboo ilahay wax weydiisa wuu siinaya wamaa kaana caطaa'u rabbika rabbigaaga siismadiisana ma ahanin maxduuran mid la reebo undur bal u kuurgal kayfa fadalnaa bacdahum calaa bacdin saanu iyagii marka u kala fadilnay kayfa fadalnaa saanu u kala fadilnay bacdahum qaarkood calaa bacdin qaar kale fi risq risqigay dadku kala tegsan yihin jaaha lagu kala tegsan yahay shaqadii baa lagu kala tegsan yahay xoolihii baa lagu kala tegsan yahay awlaadii baa lagu kala tegsan yahay prestigiska lagu kala tegsan yahay bal arag saan dadka u kala dunay walalaakhiratu tii dambaysay ayaa akbaru darajaatin xagga darajaadka weynin badan wa akbaru weynin badan tafdiilan fadilitaanka haddii adduunyada maanta uu kuu muuqdo nin multimillionaire uu kuu muuqdo iyo mid isagu markaa ah carada ku dhegan oo maanta wuxuu cuni lahaa aanan heli karin haddii maanta dadku saa gaabka u dhexeeyo aada loo kala duwan yahay aakharana fadliga ilahi subxana wa taala akbaru darajaat inta in ka badan baa la isdheeryahay waxaa lagu kala tegsan yahan waa camalku ilahay leeyahy laa tajcal ha yeelin maca allahi ilahay la jirkii ilaahan mid la caabudo aakhara oo kale fataqcuda marka aada ahaatid ay fatasiira madmuuman mid la haydaartayey ama la ceebeeyey makhduulan ee garabkiisa laga baxay oo cid u gargaaraysa aanay lahayn oo la duleeyey ha noqonin ama la hoojiyey وqضىa ربka أnlا تacbudوu إlا إyah وبالwاalidayni إحsانا إma yblغna cindka الكبر أxadهma أو kilاahma flا تqل lahma أf وlا تnhrهma وqل lahma qwلا كريما aayadda 3 min suuraة الإsراء ilahi wuxuu le وqضىa rabka rabbigaa wuxuu xukmiyey ama amray أnlaa tacbuduu inaydan caabudina إlaa إyahu isaga mooyaan وبالwaalidayni وأn تxsinuu inaad wanaajisaan bilwaalidayn labada waalidna ixsaanan wanaajin inaad wanaajisaan ilahay wuu idin faray imaa yablugana haddii ay gaaraan cindaka adiga agtaada alkibara da hadday agtaada ku gaaraan ama imaa yablugana hadduu gaaro dheh cindaka adiga agtaada alkibara da hadduu gaaro axaduhumaa labadoodii mid ka mid oo agtaada uu ku gaboobo aw kilaahumaa ama labadooda agtaada ay ku gaboobaan falaa taqul lahumaa ha u dhihin ufin uf ha dhihin oo yani waa kelmadda sida ay af soomaaliba u tahay yani ha ka didin oo ha ku labalaboon ha ku yaaqyaaqsan ha nicin uf ha ku dhihin walaa tanharhumaa ha horarin hadal adag oo indhaha kaga soo dhacana ha ka horgeynin waqul lahumaa waxaad u tiraahdaa qowlan ooraho kariima wanaagsan hadal dabacsan ku dheh waqfid lahumaa u raarici janaaxa dulli garabkiisa oo ah yani bimacnaa aada iyo aad u naxariiso min araxmati naxariisiiye aada isugu raarici waqul waxaa tira rabbi yaa rab irxamhumaa labadeeda waalid maanta u naxariiso kamaa rabbayaanii say aniga iisoo barbaariyan sagiiran xaalaan ahaa kii yaraa yani halkaana waxaa la muujinayaa yani waalidku marxalad buu leeyahay nacam shalay adoo waxba ahayn baa ilaahi subxaana wa tacala halkaa ku keenay waa lagu soo gacan qabtay halkaasaa lagu soo gaarsiiyey
marxaladii adiga aad soo marto dacfiga ahayd الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير إليه سبحانه وتعالى له مرحلة دي أذي أصومرت ضعف يهد بوالدك كلها بنا ثم رددنا أسفل السافلين مرحلة حكو إيمان ضد مرك والدك وجاري إنه أنت إسكو دردرمه أول الربه سيدا أذيك جانجيga lagu samayn jiray oo xafaayad lagaga bedeli jiray oo lagu fariisin jiray oo gacanta lagu qaban jiray oo raashinka afka lagu gelin jiray marxaladii uu isna gaari doono labadoodana waa laga yaabaa inay wada noqdaan guriga ku fadhiyaan ama mid kamidi waxay ahaataba uf hadhiin ilaa shalab adigu uf lagu ma dhihin marka culimadu waxay leeyihiin yani hadii ta'fiif la diiday uf hadii la diiday waxa ka weyn ka war qofku waalidku inuu gacanta ka qabto oo guriga ka saaro ama uu dhirbaaxo ama uu yiraahdo guriga ma soo gali kartid ama uu yiraahdo ma aragtay islaanteyda ku diidan hooyo hadaad tahay ka tag ama aabo waa lagu diidan yahay ka war way ka darantaa marka xaaladu marka ama odaygii baa ku diidan in la dhaho way ka daranta marka hadii uf ah meesha ugu yar hatta kaliya maaha uftu inaad afka ka tiraahdo kaliya maaha hatta noocan ma haduu ku dhibo waxay dhihi jireen hatta sanka inaad ka qabsatid waxay ka mid tahay waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu diiday waxaa kaloo iyadana uu heliya xaaladaas waa xaalada iyo wax kale ay maqlayaan male dhagaha u shaqeynaya qawlan kariiman hadalka wanaagsan janaaxa dhilli min arraxma naxariis muuji oo maxaa saa u samaysay iyo yaa meeshan fariisa ku yiri iyo waqtigan maxaad kan u samaysay iyo in la canaanta ma waxaa loo baahan yahay naxariis waxaa kaloo haddana irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira iyadana ducadaana inay aad aad u badnaato walaahi kamaada iyada markaan fasiraynay waanu soo martay tafaasiir dheer baa ku jira runtii oo macaani daqiiqa marka xambaarsan ilaahay marka wuxuu leeyahay nahrigana jooji waa zajriga horarka oo qofku si adag ula hadlo ama indhaha u gududiyo xataa cala aqal xataa hadalka intuu qurxiyo actionku uu fool xumaado ama farakutaag uu gaaro ama gasaa uu dhaho ama isha uu rogo ama uu sanka taago ay ariiqa runtii muujin kara yesitaan ama liiditaan ama in hoos loo eego waalidka muujin kara intuba ilahi subxana wa tacala wuu diiday jala wacala muxuu rabbakum rabbigiin ayaa aclamu garasho og bima fii nufuusikum naftiina wixii dhexaaday in takunuu haddaad ahaataan saalixiina kuwii wanaagsan oo ilaahay u hogaansan fa inahu rabbi kaana wuxuu ahaaday lilawaabiina kuwa u laabashada badan daacadiisa kafuuran kii ilahay dembiga u dhaaf u ahaada halka waxaa laga wadaa marka yani wax badan baa kuu qarsoon laga yaaba inuu qofku ciriiri dareemayo leish ma aragtay waay ay meeshan kuu joogaan oo ay meeshan u fadhiyaan iyo ciriiri baad dareemaysaa oo halkaa ilaahay subxaana wa tacala u kala socdaa jala wacala ilahay marka wuxu waaati sii dha lqurbaa kan xigtada u saaxiibka ah xaqaw xaqiisa sii wاlmiskiina miskiinkan xaqiisa sii wabna sabiili kan musaafirkan xaqiisa sii walaa tubadir ha ku tabdiirin oo ha ka badbadinin bilinfaaqi markay taaganta waxbixinta fii gayri taacati ilah tabdiiran ka badbadin tabdiirku waa xoolo meel loogu talagalay aadan yani xoolo wixii intii lagugu talagalay inaan ahayn inaad bixisid wey walidaalika tabdiirka waxay dhahaan wixii daacada ilaahay ka soo hara wey laakiin qofka hadduu yidhaha intaasoo milyan baan masaajid ku bixiyey ama intaasoo milyan baan sadaqa ku bixiyey hadduu qur-aan yani qofku uu dhaho dembi ma gelin wey oo bimacnaa shaygaas wuxuu la yimid israaf laguma magacaabo oo waa hawl marka aad i aad u wanaagsan waxaa la diidayaa wixii fii gayri taacati illahi ah ilahay marka wuxuu ina almubadiriina kuwa tabdiirka la yimaadaaye kaanuu waxay ahaadeen ikhwaana shayaaiin walaalahood oo bimacnaa shibhahum wey wa kaana shayطaanu shayطaanna wuxuu ahaaday lirabbihi rabbigiisa kafuuran midkii ku gaalooba waimaa tucridana canhum haddaad ka jeesatid iyagii oo bimacnaa qof baa wax ku weydiisto ku yiri waxay sii oo sadaqaa lagu weydiiyey ama waxbaa lagu weydiiyey markaana waxba ma haysid oo gacantaada waxba kuma jiraan laakiin waxaa laga yaabaa in aakhiri mishaar aad ku jirto wiig kadib 2 wiig wuxuun kuusoo dhici doonaa oo lacag iyo meel un business kugu jiro wuxuun inaad filaysid ilahay marka wuxuu leeyahay imaa tucridana haddaad jeesatid canhum iyaga ibtigaaa raxmatin naxariis dalabkeeda min rabbiga xaggiisa ka ahaatay darteed haddaad ugaga jeesatid taasoo tarjuha aad rajaynaysid waxbaad filaysaa inay kuusoo dhici doonaan faqul lahum waxaad ku tirahdaa qowlan hadalkaasoo maysuuran fudud hadal sahlan ku dheh oo hadalaan cuslayn oo ah
sahalku waa maxay inaad dhahday insha allahu khayr baa la filaya insha allah la idinka farxin doonaa hal ii kaadiyo xoogaa 2 isbuuc iyo aakhir mishaar baa lagu jira xaggaa igaga furan tahay laakiin insha allahu saad ballan wey insha allah inaan hawsha wax ka qaban doono laakiin hadhihin cv daar iyo intaasaan idin biilayay iyo weligiin waa soo taagantihiin iyo ma aragtay hawsha ha gelin wixii hore way tageen camalkaaga ha burinin laakiin wixii marka aad kartid bixi haddaadan karin soo mahana ballanqaadkaas quruxda badan samee walaa tajcal ha yeelin yadaka gacantaada maglulatan midii iyadu xiran ilaa cunuqika luquntaada ku xiran ha ka dhigin oo nin ha noqonin gacan adayg badan walaa tabsuta hana fidinin kula albasti fidin oo dhanoo waxa dhanna ha wada bixinin oo fataqcuda aad ahaatid maluuman mid markaa isagu la dagaalay waa goorma haddii gacanta ay luquntaada ku dhegto oo gacan adayg badan u yimaado maxsuuran aad ahaatid mid go-ay waa goorma waa haddii shilinkao dhan aad bixisid qur-aanka marka 2 shayba waa laynoo diiday midna waxaa la yidhi wax alla waxaad haysatid hawada bixin midna waxaana la yidhi wax alla gacantaada aan noqonin mid luqunta ku dhegan oo ha noqonin dhagax dhiig aan laga maali karin oo kale ha noqon ama laga lisi karin yani bimacnaa ha noqon 2 xaaladood baa la diiday 2 xaaladood marka 2 xaaladood oo diinka uu diido 2 extreme ah qofkii mid kamid la yimaada dhib baa ku imanaya midna wuxuu ilaahay qur-aanka ku sheegay maluum midna maxsuur maluum waxay u noqonaysaa qofkii wax bixin waa dadka dhan kan waa bakhayl kan faa'iido ma leh kan waa san lacagta magaciisa ku yaal bunduq buu haystaa konta magac lagu bixinaya laakiin haddii wixii intii mileenaadis hal mar haddaad wada shubtid oo ciyaalkii adiga waxba aadan reebanna maxsuur baad noqonaysaa adaa beri dadka baryi doona marka 2 xaaladoodba iska ilaali marka maluuma waxay u laabanaysaa gacanta oo luqunta lagu dhajiyo bakhaylnimada oo qofku dhabcalnimadiisu markay badato maxsuuran mid go-anna waxay u laabanaysaa midku jeebkiisu marnaanayo oo shilin ba aan la soo harayn 2 xaaladood baa la diiday ina rabbaka rabbigaa yabsutu risqiga isagaa faafiya ama fidya dheh yabsutu ilaahay wuu fidyaa dheh الرزق رزقي لمن يشاء ciduu doono ويقدر wuuna ciriiriyaa ciduu doono wuu ku ciriiriyaa isagaa ilaahay kara inahu rabbi kaana wuxuu ahday bicibaadihi addoommadiisa khabiiran allihii gun og basiiran arka walaa taqtuluu hallaynino hadilina awlaadakum kuwa aad dhasheen khashyata imlaaqin faqri baqdid aad ka baqaysaan ciyaalkan yaan la dili ama dilitaanku ha noqdo siday hore u samayn jireen la nolol xabaalo ama hadda tacticada jirta oo ah in kaniin laga dhargo si aanba awlaad aanay u imaan oo ujeedaduna ay tahay baqdin laga baqay hadday ilmahan yimaadaan yaa biili doono ilahay marka wuxuu leeyahay naxnu narzuquhum inagaa arzuqayna iyaga wa iyaakum idinkan inaga in arzuqayna risqiga ilahay agtiisu ka yimid maaha salary iyo mishaaraad qaadatid maaha waxa ciyaalka lagu arzuqo ilaha anagaa bixinaynu yidhi suurat al-israa ilahay wuxuu soo hormariyay naxnu narzuqukum waxaa la soo hormariyay dadka waaweyn markaasaa waxaa la dabamariyey awlaadii halka kanna waxaa la soo hormariyey iyagii annagaa bixinayna risqigooda biilkooda idinkana 2 xaaladoodba ilahi subxana wa tacala annaga waa hawl inaga inoo taabuley ina qatlahum leyntooda iyo dilkooda kaana wuxuu ahaaday khaطan gaf kabiiran weyn waa khaطan kabiiran in la dilo ama adiga si la yaqaano xisigii u dil oo siu doon ha u dilo ama dilkii techniiga ahaa oo tacticada ay ku jirto ha noqoto waad gaf ilahay marka wuxuu walaa taqrabu zina zinadana ha u dhowaanina inahu zinadii kaana wuxuu ahaadaa faaxishatan faaxisho xumi iyo wasaa waxaa xumaada sabiilan wado oo zinadiiba xumaatay walaa taqtulu nafsa nafsadiina ha dilina allatii nafsadaasoo xarama allahu ilaahay uu xaaraantinimay dilkeeda ilaa bilxaqi xaq inaad ku dilaysaan m naf disha iyo intii xadiidku uu sheegay ee sharcigan ahayd waman qutila ruuxa la dilo madluuman xaalu mid la dulmiyey qof aan waxba geysan oo wixii naf lagu dili lahaa aanan geysan oo la iska dilo faqad jacalnaa waxaanu yeelnaa liwaliyihi ruuxaa la dilay weligiisii cidda dhaxalkiisa iska leh sultaanan baanu u yeelnay awood oo qofkii qaatilka ahaa ee dilay uu kusoo qabto oo u makansado oo isna uu ka oofsado qisaastii ee falaa yusrif yaanu xadgudbin kan gacanta loo soo geliyay fi lqatli dilka ninkan uu ka qisaasanayo yaanu ka badbadin inahu kii weliga ahaa ee dhaxalka maqtuulka lahaa kii la dilay kaana wuxuu ahdaa mansuuran mid markaa loo hiiliya buu ahaada waa haddaan damiirka meesha u celino ama inahu kaana mansuuran
oo ah ninka kan la dilay dad buu ka dhashay wey. halkan marka waxaa la tilmaamaya ilahay wuxuu leeyahay qofkii la dilo madluuman iyo dhaaliman dee yani madluuman isagoo madluuma la dilay oo ah maaha naf dishay ma aha naf xuduudii la sheegay gashay maaha waa la iska dilay waa lagu gardarooda. ilahay marka wuxuu leeyahay ninka isaga yaa u aaraya dadka dhaxalkiisa leh ee isaga xigtadiisa ayaa waxaa la yidhi idinka awoodda gacantiina ku jirta. sultaan marka kan arag waxaa la siiyey title ah sultaan yaa la dhaha. sultaan waa ninka awoodda leh powerfulka ah ee madaxda ama boqorka ama madaxweynaha ama booska fadhiya ama maxkamadii jooga. sultaan baa ilahi subxana wa tacaala siiyey. isagaa soo qabsanaya, isagaa xerxeranaya, isagaa geed la tegay, isagaa ka oofinaya laga wadaa. laakiin marka dilkaa la oofinayo oo uu dhacay qisaasta ay dhacaysa falaa yusrif yaanu xadgudbin fi lqatli dilkii yaanu ka badbadin. yani bimacnaa inuu qofku intuu soo qabto uu jarjaro oo mutilation ku sameeyo marba xubin meel ku tuuro ama haddana dab uu raaciyo ama uu yihahdo saasaan yeelaya ma yaanu ka badbadin. hal qof baa dilay laba kale yaan kuwa kalan shaqa yaan la dhihin ninkan soo lama dilin nin kale isagana ma aragtay reerka ku jiro oo dantiista amaba dhakhtara ama aan u dilin yaan la dhihin yaan laga badbadin. يعني فلا يسرف في القتل معناها سآيدة المامسة جل وعلا مركو حليه ولا تقربوا مال اليتيم أغونت أما أغونك حوليه ساو دوانينا إلا بالتي حالتي إنا دو دواني إنسان مويانة هي يوضو أحسن وناك بضا حتى يبلغ أشده إلا وكجاره كمال كيس وكجاره أو واحد لجي ذا يعني بمعنى إلا بالتي أحسن ومحيوة القرآن وبتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالا فأشهدوا على ما كفى بالله حسيبا. يعني بالتي هي أحسن نينك ما أغانك كان إن مالكيسي لاهيو أو نينك هاي وليغا أرنكيسا كوكوما يهدو أباهدو بحي باهديس إنو عوني كرا hadduusan u baahan inuu faraha u ka qaadayo iyo wixii la midka ah. jala wacalaa marka wuxuu awfuu bilcahdi ballanta oofiye ina alcahda ballantu kaana waxaa ballankii ama oo la galo cahdigii la galay kaana wuxuu ahaaday mas-uula mid la isweydiiyo. wa awfu lkayla beega dhammaystira idaa kiltum markaad beegaysaan wazinuu miisaama bilqistaasi ku miisaama miisaankii almustaqiimi ee toosnaa. bilqistaas almustaqiim waa miisaan toosan aan dheeliyin wax ku miisaamo. marka kayl iyo wasni baa kala jira. yani maalan wasni waa wixii miisaan la saaray, kaylna wixii la beego. wixii la beegayana sida ay tahay u beega. wixii miisaan la saarayo rubac iyo thumun iyo thuluth la saarayana sida ay tahay marka u sameeya. daalika kaasaa khayrun wanaag badan wa axsanu wanaag badan dheh ta'wiilan xagga ciribta ma-aalka dambe shilinku soo gelay inuu barakoobo in ilaahay agtiisa waxaa lagu qabsan in qofkan bini aadamka aadan dulmiyan waxay ka mid tahay iyadaa wanaag badan yani axsanu ta'wiilan mustaqbalka dambe iyadaa marka runtii wanaagsanaan badan. hadda kahor waxaa la sheegaa nin noocan ma nin buu u tegi jiray oo nin hani u ah xoolo lahaa dabcan nin faqiiru u tagaa markaas wax ka gataa dabcan ninkan marka waxbuu marka u geeyey wuxuu yidhi niyow tan qaado waa waxay u dhigantahay 1 kiilo oo hadiyad ahaan buu siiyey maaragtay qaadu yiri. ninkan marka faqiirka meel yar baa u furan waxbuu beeciyaa kan uu yimaado ka gataa. kii marka qaniga ah wuxuu ka shakiyey war waxaan ninkan maalin baa ka soo qaadatid beegi amuusan kiilaba ma dhamo waxa kan saabu marka u fiiriyaa kiila ma dhamo nus kiila ma dhamo kadib wuxuu yiri waa maxay de waxaan aad siinaysid marka iga jeegare. kii wuxuu yiri marka la jeegareeyay wuxuu yiri wuxuu soo qaaday kiila bariis oo ninkan uu siiyey meel u taal taas wax ka soo ku beegaa marka tii marka lagu beegay waxa soo baxday in wixii kiila ay ka yirihiin. marka uu yiri maxaad ii khiyaantay wuxuu yiri anigu waxaan ahay nin faqiir miisaanna ma soo galan karo thuluth iyo thumun inta ma heli karo intii aad igu sheegtay inay tahay kiila bariis ayaan meel dhigtay iyada wax kugu beegaa buu yiri. haddii maanta nuqsaan ay ku jirto shala adaa nuqsaanta geliya buu yiri. yani waxaan hada kaylukum rud ilaykum waa taadi un kali haddaba axsanu ta'wiilan taa waa kan yani bimacnaa ciribtii dambe isagay galfatay oo ilaah tii aakhirana way ka dambaysaa waylul lilmutafifiina ilaah uu leeyahay walaa taqfu harraacin haddul istaagin ma walaa taqif lama dhihin walaa taqfu harraacin maa laysa laka min alqaf bay kelmadu ka timid waxaanan kuugu sugnaanay bihi maaga cilmun ogaal waxaadan aqoon u lahayn intaad soo istaagto caqliga cilmi waa iswataan ha dhihin
waxaan aqoon bay u baahan yahay aqoonteeda ma leedaha haa haddii kalena ka aamus ina asamca maqalkii iyo walbasara aragii iyo walfu-aada qalbigii wixii dhexaaday kullu ulaa'ika dhammaantood isku soo duuduuba kaana canhu wuxuu ahaaday mid mas-uula layska weydiiyey kaana mas-uulan canhu waa layska weydiinaya walaa tamshi ha soconin fi lardi ardada maraxan adoo isqaadqaaday qobweyni faajaartan uu kugu jiro ha soconin inaka adigu si kasta haddaad isku qaadqaadid lan takhriqa ma duleelinaysid alarda ardadii kama dhex dusi kartid yani waxaad culays aad qabtid waxaad dhulka lugaha ku dhufatidba walan tabluga mana gaari doontid aljibaala buurahana tuulan dherer kuma gaari kartid si kasta haddaad isku qaadqaadid aayar soco kullu dalika kaa dhammaantii kaana sayi'uhu kiisa xun wuxuu ahaaday cinda rabbika rabbiga agtiisa makruuhan mid la kohdo ama kaana sayi'uhu ila waxa dhan waaba sayi oo tawjiihaad kalena way leedahay dalika kaas aanu soo sheegnay mima awxaa ilayka ay min jumlati ma shay duuduubkii way awxaa ilayka uu ku waxyoodo rabbuka rabbiga min alxikmati xikmada walaa tajcal ha yeelin maca allahi ilaahay la jirkii ilaahan ha yeelin ilaahaas aakhara oo kale oo fatulqaa markaa lagugu tuura fii jahannama maluuman xaalaa tahay midkii la dagaalay madxuuran la fogeeyey jahanamaha ku mutaysan wey afa asfaakum rabbukum rabbigiin ma wuxuu idiin doorto o idinku gaar yeelay bilbaniina wiilasha waittakhada ma wuxuu yeeshay min almalaa'ikati malaa'igtana inaathan dhadig miyuu ka yeesho habla miyuu yeeshay yani bimacnaa qolada leh almalaa'ikatu banaat ullah inakum idinku la taquuluuna waxaad leedihiin qowlan baad leedihiin ooraha cadiiman aad iyo aad u weyn ma sahlan haddaba ogaada kelmadda iyada walaqad sarafnaa wallahi waxaanu cadaynay fii hada alqur'aani qur'aanka kan ayaanu wax badan ku rogrognay aanu ku cadaynay amhaala oo wacdiya oo waciida oo yabooha oo goodisa oo xikam ah ujeedadana waxay tahay liyadakaruu inay waantoobaan wamaa yaziiduhum umana ziyaadinaya waxaasoo dhan lagu dul aqriya ilaa nufuuran diris mooyaane qul waxaa tirahda low kaana macahu ilahay la jirkii hadday ahaan lahayn aalihatun kuwa la caabudo kamaa yaquuluuna siday iyagu leeyihiin hadalkasay u dhigayaan haddaan ka soo qaadno oo ah ilaahay aaliha kalaa la jirta hadday arrinku uu sidaa u yahay idan goorta iyada labtago waxayba dalbi lahaayeen aalihadaa kale ilaa dilcarshi midka carshiga u saaxiiba sabiilan wadayba u raadsan lahaayeen yani bimacnaa waxaa la leeyahay masaladan waa iftiraadi hypothetically ba qur-aanku marka u tilmaamay haddiiba ay dhici lahayd aaliha kale inay jiraan oo ilaahay la haysta maamulka waa la isku qabqabsan lahaa meesha carshiga throonka ilaahay subxaana wa tacaala marba ilaah baa qabsan lahaa dagaal baa ka dhici lahaa samada midba hoos bay mari lahayd midna cardadu kor geyn lahaa midna roobkuu celin lahaa midna marka biyuhu la tegi lahaa sida de bini aadamku maanta u dhaqmaan oo kale oo kuraasa la isugu qabqabsadoo kale sidaa ka dhici lahayd marka there would have been corruption buu ilahi subxaana wa tacala leeyahy halkaa marka in systemka qoraxdu waqti ay soo baxdo oo waqti ay dhacdo oo aanay isbedelin oo la shamsu yanbagii laha an tudrika alqamar waleyla yusaabiqu الnahaar wakulun fi falaki yasbaxuun in la yidhaahdo oo jacalna alleyla wالnahaara aayatayn famaxuna aayat alleyl wajacalna aayat الnahaar koonku inuu si systematically u socdo oo wax walbaba aanu isbedelin maalinkii ilahay u abuuray ila alaan orbit systemkii galaxieskii ardadii iyo wareegeedii wax alla waxa sida ay tahay u socdaan waxay muujinaysaa hal ilaah inuu jiro laakiin maanta laba ilaah saddex ilaah hadday jiri lahaayeen inqilaabyaa ka dhici lahaa kuubaa ka dhici lahaa inqilaab dhiig ku daatay midaan dhiig ku daadanin waxaasoo dhan baa ka dhici lahaa laakiin ma jiraan buu rabbilcaalamiin leeyahy sabiilan waa maxay wado ay kula dagaalamaan wey subxaana rabbi hufnaaye wa tacaala sareeye camaa yaquuluuna waxa ay leeyihiin culuwan sare kabiiran aad u weyn buu ilahi subxana wa tacala waxaa ka sareeya rabbilcaalamiin waxaas wax loo soo dhoweyn kara ma tusabixu lahu ilaahay waxaa hufa asamaawaatu cirarkii asabcu ee toddobada iyo walarda ardada iyo waman fiihina iyo waman duulo fiihina dhexaada wixii malaa'iga kor jira wixii makhluuqaad kale ardada jooga intaba ilaahay bay u tasbiixsadaan wain min shayin shay ma jiro ilaaba hadduu jiro yusabixu shaygaasu wuu tasbiixsadaa bixamdihi multabisan bixamdihi isagoo mahadda ilaahay ku dhehan walaakin laa tafqahuuna laakin idinka haddaad aadanatihiin ma fahmaysaan tasbiixahum tasbiixdooda ma fahmaysaan inahu rab اlcaalamiin kaana wuxuu ahday xaliiman allihii dulqaad badan afuuran ee naxariis badan jala wacala afuuran ee dembi dhaaf badan dheh ilahi subxana wa tacala uu dulqaad badan yahay waana afuur yani bimacnaa maanta shay walbaba shay haddii la yidhi microfonkaana soo gelay oo geedkaa soo gelay oo dhagax baa soo gelay wax walbaba way tasbiixsadaan laakiin tasbiixdu aniga haddaan bini aadam subxaan allahi baa tasbiixi ah malaa'igtu si gaara u tasbiixsataa
geeduhu si gaara u tasbiixsadaan si gaaray u sujuudaan waatun qur-aanku uu leeyahy alam tara ana allaha yasjudu lahu man fi الsamaawaati waman fi اlard wالshams wاlqamar wالnujuum wاljibaal wالshajar wالdawaab wakahiiru min الnaasi wakahiiru xaqa calayhi اlcadaab waman yuhin illah fama lahu min mukrim intaba waa wada sujuudaan laakiin way gaara wey laakiin qoraxda markay sujuudayso macnaheeda maaha foolka inuu dhulka soo dhigayso meesha noogu imaanaysa macnaheeda maaha geedku inuu dhulka intuu jiifto soo kacay macnaheeda maaha laakiin dariiqo gaara oo ilahi subxaana watacaala u sameeyey laakiin ilahay marka wuxuu yihi walakin laa tafqahuun fiqi bay u baahantay inaga ma fahmi karno fiqigu waa maxay isheenu ma qaban karto sujuudooda laakiin inaan fahmno wey xaqiiqa ilahay sugay inay tahay waidaa qara'ta alqur'aana qur-aanka haddaad aqrisid jacalnaa waxaanu yeelnay baynaka wa bayna aladiina adiga iyo kuwa laa yuuminuuna aanan rumaynay bilaakhirati aakhira inta udhexaysa waxaanu yeelnay xijaaban baanu yeelnay xijaabkaasoo mastuuran astura jacalnaa waxaanu yeelnay baynaka adiga dhexda wa bayna aladiina kuwii dhexdoodo laa yuuminuuna aanan rumaynay bilaakhirati aakhira xijaaban baanu yeelnay asturo mastuuran xijaaban baanu yeelnay taad mastuuran asturaya yani bimacnaa qur-aanka markaad aqrisid waa laidinkala asturaya yani kuma arkayaan waa qolihii nabiga sala allahu alayh wasalam dhibka la damcay wain kaaduu layusliquunaka biabsaarihim lama samicuu dikra wayaquuluuna inahu lamajnuun waa dadka isku dayay nabiga sal inay mar walba dilaan qur-aankaasaa noocan ma ilahi subxaana watacaala kugu ilaaliyay halkaa marka cajaa'ib fara badan baa kusugan qur-aanka kan inta carabka lagu hayo oo saa loo soo celcelinayo yani bimacnaa ilahi subxaana watacaala qofka u ilaalinaya maxaa qur-aanka markuu leey inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun inagaa waxyiga soo dejin waa ilaalinayna qur-aankan ilaalintiisa waxaa ka mida qofka haya ee laabta ku haya in la ilaaliyo ila waa qofkii isaga hayn lahaa oo soo celcelin lahaa ee ku tukan lahaa waa in la ilaaliyo halkaasa marka waxaa ka dhalanaya wainaa lahu laxaafidun lilqur'aani walixaafid alqur'aani bay culimadu dhaheen qofka qur-aanka dusha ka hayn waa la ilaalinaya ilaalintaada waxay noqonaysaa intaad xifdisanta 1 juz 2 juz 5 juz 10 juz 30 juz sida aad u xifdisantahay ilah waa ku ilaalinaya dadka iyagu magafayaasha ah ilaalintooda way sareysaa qofka yatatactac ee la kufkufay ilaalintiisu meel bay ku ogtay marka qofka inuu marka waxoo dhanba u ka baxo dhibaato dhanba waxay ku xirantaha qur-aankaasi u wadaw jala wacala wuxuu wajacalnaa waxaanu yeelnay calaa quluubihim laabahooda waxaanu dul yeelnay akinatan daboolla ayaanu dul yeelnay an yafqahuuhu lianlaa yafqahuuh saani u fahmin ilahay baaba aanburaba wa fii aadaanihim dhagahoodana waqran jiglaanu ka dhignay dhaga culus baanu dhagahooda waxma maqlayaan waqriga waa culays baa la saaray qofka kelmadda in uu ma aragtay biaala inuu ku gudbiyo ma aanu maqlin waidaa dakarta rabbaka rabbigaaga markaad xusid fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisana waxdow kelidii markay maqlaan ilaahay keligii markay maqlaana wallow way jeysana calaa adbaarihim dhabaradooda ayay u jeysana nufuuna iyagoo didaya maba arki karaan ma maqli karaan waidaa dukira allah waxdahu shmaazad qulub اladina laa yuminuuna biاlaakhirati waida dukira aladiina min duunih ida hum yastabshiruun wixii ilaahay ka sokeeya marka la sheegana wayba arrinkaa waa arrin ay markaa aad iyo aad ugu farxayaan laakiin waxdaaniyat llahi baa dhibaysa naxnu aclamu bima yastamicuuna bih naxnu inaga aclamu ogaal badan bima yastamicuuna bihi waxay dhegaysanayaan id yastamicuuna ilayka markay ku dhegaysanayaan waid hum najwa markay iyagu faqayaan id yaquulu aalimuuna aalimiinta markay leeyihiin baanu ognahay in tattabicuuna dadoo ma raacaysaan ilaa rajulan nin mooyaane ninkaasoo masxuuran la falay id walbo meesha taal idda kale bedel ka tahay oo maanta ma gelayno wixii detail oo naxwaana soo maray marka waxaanu la soconaa bimaa yastamicuuna waxa ay dhegaysanayaan bihi bisababihi sababtiisa ay u dhegaysanayaan jasjas wey waanu la soconnaa id baanu la soconnaa yastamicuuna ilayka markay dhagaha ku raaricinayan waanu ogna waid baanu la soconaa goora hum yoga najwa ay faqayaan waanu ognahay waxay hoos isaga sheegeen id yaquulu aalimuuna aalimiinta marka ay leeyihiin in tattabicuuna war ma raacaysaan ilaa rajulan nin mooyaane masxuuran la sixray markay leeyihin waan la soconnaa undur bal eeg oo u koorgalo fiiri kayfa darabuu laka sida ay kuugu yeelaan alamhaala mathalada oo mar walbaba tusaale waa la sixray iyo waa kaahin waa gabyaa ay leeyihin fadalluu way lumeen falaa yastatiicuuna mana karayaan sabiilan wadadii toosneedna ma heli karaan wa qaaluu waxay yihahdeen aidaa kunaa cidaaman markaanu lafa noqono iyo warufaatan kuwa wax burbur markaanu noqono oo saan u riqano aina inagu lamabcuuhuuna ma lana soo saaraya khalqan oo miso jadiidan cusub qul waxaad tiraahdaa kunuu ahaada xijaaratan dhagxaan ahaada aw xadiidan amaba bir ahaada aw khalqan amaba uun ahaada oo mimaa kii kamid yakburu weyn
weyn amaba fii suduurikum laabihiina ku weyn waxaad doontaan noqda ama noqda dhagxaan noqda ama biro noqda ama khalqi kale uun kaleo qalbigiina ku jiro annaga ma aragtay idinku weyn noqda ilaahay subxaana wa tacala idin soo saaree yani bimacnaa halkaa marka qul waxaad tiraahdaa kunuu xijaaratan noqda dhagxaan aw xadiidan noqda biro noqda aw khalqan noqda khalqigaasoo mima yakburu fii suduurikum laabihiina ku weyn waxaad doontaan noqda ilahi subxaana wa tacaala falaa budda min iijaadi الruuxi fiikum waa khasab in ruux lina dhex geliyo fasayaquuluuna waxay dhihi doonaan man yuciiduna yaana soo celinaya nolol yaa noo soo celinaya say suurtagal ku tahay qul waxaad tirahdaa aladii macbuudkii baa idin soo celinaya fatarakum idinkaba idin abuuray oo idin amaamuday awala maratii ugu horreysay marka horeba from nothingness baa dhahay yaa ku keenay fasayunqiduuna way raaricin doonaan ilayka adiga ru'uusa madaxyadooda oo saasay u hundhursan doonaan wayaquuluuna marka waxay leeyihin mataahu haddaba waa goorma qul waxaa tiraa casaa an yakuuna wuxuu xaqiiqa ku yahay qariiban inuu noqdo midkii dhow wax ka harsan baaba iska yar wabillahi towfiiq